مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع مصطفى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيارتك وحيران كنال كسيرة أكاديمي waxaan idin leenahay galab wanaagsan inta ay habeen u tahay ama inta ay galab u tahay ama inta ay subax u tahay dhammaantiin waxaan idin leenahay habeen wanaagsan galab wanaagsan subax wanaagsan maanta waxaan sharxi doonaa cashar ka mid ah casharada kombiyuutarka arday fara badan ayaa ina soo weydiisay buugga labaad ama MS Word casharo ka mid ah ayaa ardadii xoogaa fahmi waayey si aan ugu celino oo aan u fahansiino ayaa waxaan rabnaa inaan bilaabno insha Allah waxaan rabnaa arday baa na soo weydiiyey qaabka loo sameeyo calanka waxaan dhahnay marka la sameynayo calanka waa easy waa aad bay u fududahay waxay imaanaysaa halkaan ay ku qoran tahay insert and then waxay imaanaysaa meesha ku qoran tahay shapeskan ayaad furaysaa markaa furto waxaad arkaysaa a lot of waxaad arkaysaa shapes ayaa ku jira anaga waxaan rabnaa inaan calanka aan sameyno waxaan tagayaa meesha ama calanka ayaan halkaas ka dhex raadinayaa waxaan soo qabsanayaa mid ka mid ah ayaan soo qabsanayaa markaan soo qabsado halkan ayaan ku jiidayaa waa weynaysanayaa waa soo qaadayaa soo markaasaan aan sameeyo ushii ayaan soo qaadayaa halkan markaan u qabto waxaan sameynayaa waan jiidayaa drag waxa la yiraahdaa sameynayaa markaan jiido halkaas ayaan ku simayaa haddana waxaan sameynayaa waxaan soo qaadayaa meeshii la suri lahaa ama baashii dhulka la suraya halkan ayaan u sameysanayaa kadib waxaan sameynayaa xidigtii ayaan rabaa inaan raadiyo halkan ayaan kala siinayaa and then shanta xidig ayaan raadinayaa oo waatana markaan doorto halkan ayaan ku dhajinayaa ama waa ku jiidayaa soo inta cabirkan u rabo ayaan ku sameynayaa soo marka intaas aan sameeyo kalarkii oo calanka ayaan raadinayaa ama kana ka dhignay soo saas waxaad ujeedaan inaan sameynay calankii usha natarkeeda waa sameyn karnaa kalik markaan ku siino halkan ayaan furaynaa soo ushan waa taas soo waa ujeedaan hadda waxaan sameynay calanka Soomaaliya soo sida loogu sameeyo calanka MS Word-ka soo haddii mar aad shapes-ka aad fahantid calan walba waa sameyn kartaa adigoo oo kaliya wixii aad soo qaadatay oo aad fahantay ayaad ku sameyn kartaa soo taas waa halkaas ayaan ugu bixinaa waxaa jirtay su'aal kale su-aashaas waxay macallin sidee table-ka aan u badin karnaa table aan sameynay table-ka waxaan rabaa inaan ziyaadiyo oo yacni aan badiyo soo waxaan table-ka marka aan sameynayno insert ayaan tegaynay halkan table-ka ayaan ku dhufanaynay soo inta row iyo column aa u baahan tahay ayaad ka dooranaysaa for example marka intaan ka doorto inta waxaan ku qortay number okay inta waxaan ku qortay name inta waxaan ku qortay Allah musta'aan ii sheeg salary inta waxaan ku qoranayaa mobile ama tel number ka weeye soo marka kan maadaama uu weyn yahay oo kaliya aan ka rabno number 1 iyo number 2 iyo number 3 ayaan ka rabnaa soo waxaan rabnaa marka waxaan sameynaynaa oo waa soo jiidaynaa waa yareynaynaa si aniga number kaliya aan ka rabnaa halkan highlight baan saaranayaa waxaan furayaa home-kii kadib size-kii ayaan furayaa dan cabirka u baahanahay ama 14 ayaan ka dhiganayaa soo inta waxaan ku qoranayaa Muhammad Ali Ahmed soo inta waxaan ku qoranayaa Balqiisa Abdulle Usman soo inta waxaan ku qoranayaa lambar 3 waxaan ka dhigayaa Faisal Macalin Ahmed soo inta salary marka mushaarka aan qoraayo oo mushaarka aan diyaarinayo shift ayaan qabanayaa and then number 4 ayaan taabanaa marka calaamada oo dollarku weeye soo 150 shift 4 250 shift 4
350 so inta waa numberkii weey waan markaan qorana intana waa qoranaya inta numberka aan ku qoraya so markay saa ay tahay oo waxaan sameynay table ku waan sameynay marka xarina marka arday baan soo weydiiyay sidee baan table ka maadaama oo 3 qof aan qortay sidee aan u ziyaadin karnaa macallino ardayga ayaa isu weydiiyay su'aashaasi waxaan rabaa inaan ugu jawaabo oo si fiican u fahansiyo so marka maadaama lambar 3 aan taagana aan rabno in lambar 3dan aan badino ama lambar 4 lambar 5 6 7 8 9 10 ilaa aan table-ka aan badino so halkan aan click sinaya waxaan doornaa meesha ku qoran tahay layout kan markaan click aan siino ayaa waxaan ka dooranaa meesha waxay ku qoran tahay insert above iyo insert below marka insert below ayaan click sinaynaa so waxaan ku darnay hadda table another table aan ku darnay so haddaan wadana insert below aan leeyahay waa wadi karaa so hadda marka waxaan leeyahay 4 intan waxaan leeyahay 5 intan waxaan leeyahay 6 intan 7 so hadda waxaan ku daray afar kale oo ayaan ku daray table keeni marka taasan waxaan rajeynayaa in ardayda isu weydiisay inay fahmeen hadda wixii ka dambeeyana meel ay saari doonaan sida table-ka loo diyaariyay so sidoo kale waxaa arday ka mid ah waxaan usoo weydiiyey asantii ustaad markaan rabno in aan page colorka inaan colorka aan bedelno page-ka cadka aan color kale aan ku bedelno sidee marka page colorka aan u bedeli karnaa taas waa aad bay u fududahay ardaygaas waxaan leeyahay aad bay u fududahay su'aashaasi waxay imaanaysaa page layout and then meesha ku qoran tahay page colorkaani ayaad furaysaa soo intaan kala midka u baahan tahay ayaad ka dhigaysaa saad u jeedid colorka u baahan tahay ayaad ka dhigaysaa oo page colorkaagi intaas ayaad ku sameysay page colorkaaga soo taasna waxaan fahmayaa in ardaygaas oo fahmay insha Allah mar walba waxaan isku dayi doonaa ardayda soo weydiisay su'aalaha ama casharada si fiican u fahmi waayaan in aan ugu soo celino meelihii ku adkaadan aan dib video kale aan ugu soo sameyn doono idin salaamina dhammaan waxaan leenahay soo dhawaada inta ku cusub waxaan leenahay subscribe-ka hala share gareeyo waa aniga waa engineer Cabdinaasir waxaan leeyahay galab wanaagsan